waxaa soo xoogeysanaya wararka sheegaya in Masar ay Soomaaliya keeni doonto ciidan nabad ilaalin ah oo ka qayb qaadanaya howlgal cusub oo bilaabanaya sanadka 2025 bilowgiisa. Haddaba waxaan halkan kugu soo gudbinayaa dalalka ay ciidamada nabad ilaalinta ee Masaaridu ku sugan yihiin. Isbedel weyn ayaa la filayaa in Soomaaliya uu ka dhaco mustaqbalka dhow, maadaama howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ADMIS muddo xileedkiisa uu dhamaanayo 13 bisha December ee sanadka 2024 laguna bedeli doono howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo loo bixiyay EUSOM. Haddaba ciidamada Masar ee la filayo inay Soomaaliya yimaadaan maxay ka bedeli karaan xaaladda waddanka? Dowladda Masar howlgalka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ka qayb qaadato imise dal ay ka howlgalaa. Waxaa socda dood ku saabsan suuragalnimada in ciidanka Masar lagu dari doono howlgalka cusub ee dhawaan Soomaaliya ka bilaabanaya. Inkastoo haatan war rasmi ah uusan ka soo bixin dowladda oo ku saabsan in ciidanka Masar ay howlgalkaasi ka qayb qaadanayaan, haddana wararka soo taraya ayaa sheegaya in dowladda Masar ay si weyn ugu dadaalayso sidii howlgalkaas qayb uga noqon lahayd. Rabitaanka Masar waxaa sii cadeynaya hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Cabdilfataax Al-Siisi oo ku dalbanayay in howlgalkaasi cusub ciidankiisa uu ka qayb qaato. Marka loo eego xeerarka caalamka, dowladaha waxay geli karaan heshiis difaaceed oo madax bannaan. Masar iyo Soomaaliya oo laba dowladood oo madax bannaan ahna waxay xor u yihiin inay galaan heshiis dhanka amniga ay iska kaashanayaan. Dowladda Soomaaliya ayaa waddanka Masar heshiis la gaartay bishii Agosto 14 ee sanadkani, waxaana madaxweyne Cabdilfataax Al-Siisi uu ku sheegay heshiiskaas inuu yahay mid dowladda Masar ay Soomaaliya amnigeeda ku ilaalinayso. Kadib kulankii Cabdilfataax Al-Siisi oo Qaahiro kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, hadalka Cabdilfataax Al-Siisi waxaa ka mid ahaa Masar ma ogolaan doonto wax khatar ah oo ka dhan ah Soomaaliya iyo amnigeedaba. Hadalkaas ayaana loo qaatay in dowladda Masar ay ka go'an tahay inay ciidan keento Soomaaliya, waxayna arrintaasi bannaanka keentay in Masar ay ka go'an tahay inay ku lug yeelato howlgalka cusub ee dhawaan Soomaaliya ka bilaabanaya 2025 bisha January. Haddaba imise dal ayay ciidamada Masar ka howlgalaan iyagoo nabad ilaalin ahaan u jooga? 990 askari oo dowladda Masar ka socda ayaa waxay ku sugan yihiin dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, waxayna qayb ka yihiin ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee loo yaqaano MINUSCA, kuwa oo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ka howlgala. Sidoo kale ciidamada Masar ee nabad ilaalinta waxa ay joogaan dalka Koonfurta Suudaan, waxaana magacooda loo yaqaanaa UN Mission. Howlgalka qaramada midoobay ee galbeedka Saxaraha ayaa asna waxaa qayb ka ah ciidamada Masar, halka ayayna ku sugan yihiin. Ciidanka Masar waxa kale oo ay ka howlgalaan waddanka Suudaan iyagoo qayb ka ah ciidan qaramada midoobay ka socdo oo ilaaliya xadka Suudaanta Koonfureed ee waddanka Suudaan u dhaxeeya, maadaama halka khilaaf uu ka taagan yahay. Sidaa darteed waayo aragnimada Masar ee howlgalka nabad ilaalineed aad ayuu u sareeyaa, waxaana suuragal ah haddii ay ka qayb qaadato howlgalka Soomaaliya ee dhawaan la filayo in Soomaaliya ay ka dhigan tahay horumar inay gaari karto. Heshiiskii Masar iyo Soomaaliya kadib, dowladda Masar waxa ay keentay agab military oo magaalada Muqdisho soo gaaray 27 bishii Agosto, iyadoo agabkaasi military ay keeneen 2 diyaaradood oo ah nuuca C/130 ka oo lagu sheegay in ay agab military keeneen hordhacna ay u yihiin heshiiskii Masar iyo Soomaaliya ay gaareen. Intaa waxaa dheer xiisadda sii xoogeysanaysa ee ka jirta Geeska Afrika taa u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia, waxaana Masar la filayaa in ciidamada dhawaan Soomaaliya la keenayo ay ka noqoto dhumuc aad u weyn iyo ciidanka ugu badan inay ku yeelato.